aad baan idin salaamaya. Maalin baa waxaa iga soo horbaxay anigoo meel suuqa maraya nin siyaasi ah oo markaa mucaarad ahaa, iminka waa muxaafad. oo markii Somaliland xilligii doorashada iyo xilligii xamaasadda iyo xilligii lagu jiray. Deedna wuxuu igu yidhi maxaad uga soo qayb geli weyday halganka? Deedna intaan saa u eegay baan dhaafay, lamana hadal. Marka cabaar markaan socday ayaa waxay igu soo dhacday jawaabtii aan siin lahaa. balaa markii ilaahay waqtigu igu muusimine jawaabtii aan siin lahaa oo ahayd maana isla halgama. dadka uu leeyahay in la halgano waa isla dadka ay wax wada lahaayeen meesha ku wada noolaayeen. Ma ogtahay waa siyaasadda caqli xumada ah. yani dadka marka ninkii maanta waa maxaafad ay ugu jirto xagga min Allah tacaala wax kala noqdeen meenu waxaan ogaa in xaaladda kacsan la dhaafayo ma garanaysaan de waxaan xaalad siyaasadeed lagu jiro. dhalinyarta waxaan leeyahay iska ilaaliya siyaasiga danaystaha ah ama madax dhaqameedka ama sultaan ha noqdo ama waxa weeyaan danaystaha ah aan waxaan u bixiyo kala qube. deedna marka dambe wuxuu sira tacab ku bixiyay dib u ururi. qofka dhalinyarada ah dhalinyaro badan baa lagu adeegtaa, la isticmaalaa, caadifadooda laga faa'iideystaa. waxa weeye mararka qaar xilliyada baahida ay ku jiraan baa laga faa'iideystaa. yes xilliga olaah lagu jiro qofka wax ka cunaya waa halkiisa. ninkaas lacagtu bixinayo waxa weeyaan taas waa raganimo oo wax kala dhacsi. laakiin in lagu isticmaalo damaro waxa weeyaan critical thinking caqliga tolmoon hal la adeegsado oo waliba qofka dhalinyarta yaan la idin isticmaalin. mustaqbalkiinu wuxuu ku jiro intaad yartahay mustaqbalkaaga markaad si wanaagsan u dhisto markaad weynaato ayaad u aayaysaa. wixii yaraantaada aad soo dhisto haddii kale adoo weyn baad kabashleynaysaa hadhow oo waqtiguna kaa dhammaaday. marka waxa la yiraahdaa xilli xeeriyo fanaal kala dhaceen. aad baad ii salaamay. waa Cabdi Maxamed ku dhaafaya. assalaamu calaykum.